السلام عليكم ورحمة الله. inkasta oo dadka dunida ku nool ay ku kala duwan yihiin qiimeynta iyo sida ay u arkaan aragtiyahan waxay ka helayaan farxadda iyo sida ay u faraxsan yihiin ama hadba farxadoodu waxay ku xidhan tahay dalal badan oo islaam ah farxaddu inay tahay mid ku xidhan hadba sida adoonku Alle subhanahu wa ta'ala ugu xidhan yahay ee uu dikrigiisana u akhristo balse dalalka reer galbeedka iyo dalalka gaaladu inta badan farxadda waxay ku qiimeeyaan arrimo kale inkasta hadaba oo qiimeynta dhinaca farxadda lagu kala duwan yahay iyo sida shucuubta adduunku u qiimeyso nolol farxad leh haddana badiba dalalka reer galbeedku waxay farxadda ku qiimeeyaan arrimo ay ka mid yihiin saacadaha shaqada sida qofku uu helo dhaqaale wanaagsan oo noloshiisa ku dabaro cadceedda uu helo iyo sida cimiladu diirimaad u tahay iyo xataa celcelis ahaan da'da qofku ku jiro oo iyana saameyn ku leh waxay happiness-ka u yaqaanaan oo ah in qofku xaalad deganaanshaha dareemo oo noloshiisa ku faraxsanaado toddobaadkan kambaniga caanka ah ee loo yaqaano iFisa waxay soo saareen natiijada daraasad lagu sameeyay dunida oo lagu ogaanayay 10 magaalo ee ugu farxadda badan dunida waxaana calanka u sida ugu horeysa magaalada Lisbon ee caasimadda dalka Boortaqiiska cimriga celcelis ahaan qofka iftiinka qorraxda saacadaha shaqada qiimaha maciishada iyo kalgacalka ama farxadda ay dadku kula macaamilaan dadka deegaanka ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee farxadda inoo keena ay leeyihiin sida lagu sheegay daraasad cusub oo ay soo saartay ama ay samaysay iFisa waxyaabahan asaasiga ah ee iFisa waxay samaysay liiska magaalooyinka ugu farxadda badan waxaana soo baxday in Lisbon ay tahay magaalada kaalinta koobaad ka gashay qiimeyntan waxaana keensatay dhibcadan 2801 saacadaha fara badan ee ay heleen qorraxda iyo diirimaadka ayaa ka mid ah qiimeynta lagu sameeyay farxadooda iyo sidoo kale mushaharka ay qaataan maciishada nolosha iyo arrimaha kale ee ay ka mid ka yihiin fursadaha fasaxa ah ee ay heleen magaalada Barcelona oo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee qaaradda Yurub ahna caasimadda gobolka Catalonia ee gooni goosadka ah ee dalka Spain ayaa iyana kaalinta labaad gashay dadku waxay shaqeeyaan magaalada Barcelona 30 saacadood toddobaadkii magaalada Athens ayaa waxay noqonaysaa magaalo ku jirta kaalinta saddexaad waa caasimadda waddanka Greek magaaladaasi oo iyaduna sanadihii ugu dambeysay qorrax fiican helaysay oo diirimaad ah halka ay maciishaduna ka soo reenaysay marka la eego dhaqaalaha burburkii ku dhacay dalka Greek magaalooyinka kale ee liiskan ku jira waxaa ka mid ah magaalooyinka Madrid oo caasimadda Spain ah Istanbul oo Turkiga ah Sydney oo Australia ah iyo Bangkok oo dalka Thailand iyo waliba xataa magaalada Toronto ee dalka Canada iyo waliba magaalada San Jose oo ah caasimadda waddanka Costa Rica waa hagaag marka laga eego hadaba qiimeynta lagu sameeyay sida ay dalalka adduunka u kala farxad badan yihiin ama ay farxadda u helaan marka laga yimaado dhibaatooyinka dhaqaale ee sanadihii ugu dambeeyay iyo sicir bararka taagan iyo waliba xataa cudurkii safmarka ahaa ee dabayaqadii sanadkii 2019 sanadihii 2020 ilaa 2020 saameynta weyn ku yeeshay dunida marka waxa soo dhan laga yimaado oo ay dunidu ka soo kabatay ayaa haddana sanadkan waxay mar labaad la ciirciiraysay adduunyadu sicir barar dhaqaale oo saameeyay noloshooda balse qiimeyntani taas way ka duwan tahay waxayna muujinaysaa in ay dadka magaalooyinka ku nool noqdeen magaalooyinka ugu farxadda badan oo dadkoodu wajiyadoodu ay warwarayaan ama ay farxayaan magaalada koobaad waa Lisbon 2 waa Barcelona oo Spain ah 3 Athens oo Greek ah 4 Rome oo Talyaaniga ah 5 Sydney oo Australia ah 6 waa Madrid oo Spain ah 7 Toronto oo Canada ah 8 San Jose oo Costa Rica ah 9 Istanbul oo ah magaalo ganacsiyada dalka Turkiga iyo ugu dambeyn magaalada tobnaad oo noqotay Bangkok oo ah caasimadda dalka Thailand